Hantida dunida taal ama dalalka caalamku haystaan waxaa lagu qiyaasaa isku dar inay gaaraysaa 360 ilaa 400 trilyan. Mareykanka oo qoraya taal 29 boqolkiiba hantida dunidu oo dhan wax ka badan 105 trilyan. Halka Shiinuhu ay taal ilaa 83 trilyan wax ka badan oo u dhiganta 20 boqolkiiba hantida dunida. Midowga Yurubna waxaa taal hanti lagu qiyaaso 83 trilyan una dhiganta 23 boqolkiiba hantida dunida. Japan oo ah dalka saddexaad ee ugu hantida badan dunida waxaa taal ilaa 24 trilyan oo u dhiganta 6 boqolkiiba hantida dunida. Halka Hindiya ay taal 15 trilyan oo dhan 4 boqolkiiba. 12 dal oo 8 ka mid ay yihiin reer galbeed oo kala ah USA, China, Japan, Hindiya, Jarmal, UK, Faransa, Itaaliya, Spain, Canada, Australia iyo South Korea ayay taal 82 boqolkiiba hantida dunida. Halka dalalka soo haray oo dhan ay taal 18 boqolkiiba keliya. Afrika oo dhan hantida taal ay dalalkeedu haystaan isku darku waa 4 trilyan. Dalka Talyaaniga ayaa 3 jeer wax ku dhow ka hanti badan guud ahaan Afrika. Sidoo kale dalka Sweden ayaa ka hanti badan isku darka wadamada Sacuudiga, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait iyo Urdunba. Si la mid ah dalka yar ee Luxembourg oo gabigiisa 2,000 kiiloomitir ah ayaa ka hanti badan isku darka 30 dal oo Afrikaan ah ama 130 dal oo dunida ah. Spain ayaa gabi ahaanba ka hanti badan wadamada Khaliijka oo la isku geeyo iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Mareykanku waxa uu haystaa hantida ugu badan ee dhulkan guudkiisa taal 105 trilyan. Waa hanti xadka ka baxsan Afrika, Yurub, Laatiinka iyo qaybo Aasiya ka mid ah oo la isku geeyo. Asigaa ka hanti badan waana dalka ugu dhaqaalaha badan dunida. Hantidaas aadka u badan ayaa sahashay inuu maanta noqdo dal dunida oo dhan hogaamiya. Darajada uu maanta haystaa ma aha mid si bilaash ah ku baxday. Ogowna dal walba waxaa wax ka dhigta dadkiisa.